كنا كانوا يكسروا قيب قريب مسؤولين توكلاتها الدخل جاي هرديجان يا فرت اسمهم المقالة إديجان كوكومي هاي أيها من اللي قلنا جيسنا يسلم كان اللي قيميني وحقبت توكلاتها الدخل جاي هرديجان كنا كاسوا يكسروا قيب قريب لما بمسؤولين توكلاتها الدخل جاي هتجمعي deegaanka iyo afartii ismaamul magaalo ee deegaanku uu leeyahay iyadoo kulankaasina ugu horeyntii uu furay maray ku xigeenka wakaalada dakhliga dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Yaasiin Cumar kaasoo ka warbixiyay ahmiyadda kulankan iyo sida loogu baahan yahay in la dardargeliyo arrimaha dakhliga ee deegaanka si deegaanku u gaadho yoolasha ballaaran iyo himilooyinka horumarineed ee deegaanku ku taamayo in la gaadho dhammaan madaxfeedida wakaalada dakhliga ee degmooyinka iyo kawnsilada oo aan doonayna inaan kaga hadalno waxqabadkii 5 bilood in warbixintii aan soo jeedino warbixintii aan soo jeedsan waxqabadkii waxyaabaha la qabtay waxyaabaha aan la qabanin sababtan loo qabanin qorshihii aan lahayn ma yahay mid fulay aduusa fulina sababaha uu fuli waayay inaan isla eegno dhammaanteen كنا كانوا يسووا لقبت شنتي بلاد مرة أي من اللي جوا درسوا حقبتك وكالتها الداخلية الدجاجة خاصة اللي جوا لي هي يصير حقيقيو كبر عند قالة الدجاجة وحنا كنا يسووا ما أنت كفرنا مجالات تشجيع حرمت الدجاجة وها بدنا ما برنا عادي كسر قيب قلا إسكوي على سنين عرفت يكو عدن خروجي قاري مع الداخلية كنا كهاسوا في الأيو إن ما صوص عضو وكسي صعدو مجالات تشجيع حرمت الدجاجة